السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا channel كإبراهيم سعيد. waxaan doonayaa inaan maanta idin soo bandhigo barnaamij ama cashar ku saabsan sida loo kordhiyo ama loo looga dhigo loo laabo speedka ama xawaaraha internetkaaga adigoon adeegsan software adeegsanin wax kale waa easy computerkaaga ayuu ku jirtaa waxay compatible ku tahay oo aad ugu shaqeynaysaa Windows-yada 7ka iyo sidoo kale 10ka eerkan waan jeclahay inay si fiican ugu shaqeynayso waxaan isticmaalayaa Windows 10 oo ku shaqeynaysaa waliba si fiican bay u shaqeynaysaa xawaaraha internetkayga imika 150 waxaan ka dhigtay waqti yar ka hor 46 daqiiqo ka hor oo aan markaasiba 10 ka diyaari ayaan ka dhigtay 150 marka hore waxaa 270 oo shirkadda noo xidhin markii hore basic waxay ku tahay 270 inay bixiso marka qaabka loo kordhiyay ku tusaya ka dhicin la sooco search-gaaga tag waxaad ku qortaa cmd waa kaas waxa ku soo baxaya saas run as administrator ha ku dhufan fadlan application-kaas ka furan laakiin sida u fur run as administrator saa ku soo yes da qaabka noocan ayaa ku soo baxaya waxaad ugu horeysanaysaa cd iyo calaamadaas waxaa enter badanaysa inta marka tiraahid waxaanaysaa natish fadlan iska ilaali inaad qaladid aad uga digtoonow dad hal xarf qaladid kuma shaqeynayo int tcb show global inta ayaa taabanaysaa intaad ka hubisid inta markaa taabatid waxaad ku sii hajinaysaa natish int tcb set global chimney equal enabled iska hubi natish int tcb set global chimney equal enabled enter taabo okay haduu ku yahay sax tuusan qoran waxba ka khaladan fadlan qoraalka dib isaga sax waxa ku sii xigta natish int tcb set global auto tuning level oo socdaanintaas equal normal enter taabo okay baa ku soo baxaysa hadii oo kan ku soo bixi waxba ka khaldan waxaad oranaysaa natish int ama int soo taqaanid tcb set global congestion imika provider ayaa ku xigta moogtahay provider halka waxba ku jira tricks provider equal ctcb imika inta markaad qortid kombiyuutarada qaar Windows 7 oo kale ay ku jirto congestion provider ha u dhaxaysin wax space isku xiji labadaas ku xiji kadibna equal ctcb da soomaad garan inta markaad tiraahdo waxaad tiraahdaa enter taabo sidan faraha badan ma ku soo baxaysa hadii aad Windows 10 ama 8 isticmaalaysid hadii laakiin aad isticmaalaysid Windows 7 kuma soo baxaysa kaliya waxa ku soo baxaysa okay kadibna waxaad ku xishinaysaa natish int tcb show global enter taabo wakaas waa enabled taas oo iyadoo recursive style scaling tana waa enabled qaar waa normal qaar waa waxba qaar waa disable qaar waxa weeyaan maximum resolution laba jeer baa la jibaaray tana waa fast open waa tii dhaxso furisay kadibna close you must close waska xirisaa
kadibna computerkaaga dib ayaad u baktiinaysaa restart ayaad oranaysaa hadii kuma sheegay meesha laga restart gareeyo restart ayaad oranaysaa kadibna wuxuu kugu shaqeynayaa si caadi ah hadii ay ka dhigo sidoo kale waxa ku jirta cashar ku saabsan sida loo kordhiyo xawaaraha internetka mobilka channelkeena ay ku jirtaa channelkeena ayaad ka tijaabin kartaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Fadlan like, share and subscribe.